waxaan ku jirnaa walaalayaal gabagabadii bishii khayrka badnayd bishii dambi dhaafka bishii qur'aanka bishii naxariista si gooni ah mu'miniinta loogu naxariisanayo oo iskugu naxariisanayo waa shahru sadaqaat shahru الغفران شهر القرآن شهر النفحات والبركات maantay ayaa ugu dambaysa ama bari inta bay gabagabeedii maraysa wax allaaliya wixii aan dhiganay markhaati bay maanta qiyaamaha inoo noqonaya haddaan wanaag dhiganay iyo khayr maalinta qiyaamaha soonka imaanaya wuxuu oranayaa sida nebigu yidhi عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه صونك يا قرآنك وشفاعيا أدونك قبصدي بشفاعيا صونك وحول إلهه وحندي دع النظر عبتانك يا شهودي سأيان كم منعيي إلهه إرجدي ذا وأقبل أو شفاعي ذا وأقبل وعذابك هذا كحره بشا يضع وجيستي مع المكارنا مرتي ضيف نوع هيدو أن سود وين يني قفكي وناق يا خير دكتي إلهي إن بدنا كم هدية إلهي نوافتشي هنا كدي داله خيرك أو كده حلا إنه زياد سده أو ماشى كسي وضه bishaan waxaa laga helaa istiqaamo iyo toosnaansho ayaa laga dhaxlaa oo laga helaa qofkii ilaahay ka aqbalay oo hidaayo ilaahay uu siiyey waxaa laga helaa istiqaamo iyo toosnaansho markay dhammaato qofku uu khayrka iyo wanaagga ku toosnaado caadooyinkii xunxumaa uu ka go'o imisaa qayili jiray oo bishaa markay soomeen qayilaadii halkaa oga haray imisaa sigaar cabbi jiray oo soonkii bisha markay soomeen ilaahay ku soo hanuuniyo halkaa oga haray imisaa habeenkii macno la'aan ku dhafri jiray oo bishaa soon markay barteen taraawiixdii iyo khayrkii hadhowta masaajidii xaadiray imisaan jamaacaad imaan jirin oo bishaan soon ay bartay inay jamaacaadka soo xaadiraan oo masaajidda ku tukadaan imisaa afkooda fuxshi iyo xumaan uu caadaystay laakiin soonkii uu soomay xumaantii iyo caadadii ay ka go'do xumayd oo uu toosnaaday markii ramadaan uu dhammaaday uu noqday qof toosan oo istiqaamo ilaahay uu siiyey qofkii khayr iyo wanaag bishaan dhex dhigta waxa weeyaan ilaahay in badan ha ku mahdiyo istiqaamo iyo khayrna ha ku didaan qofkii wax ka dhaceen oo wax kale ka dhaceen oo dayacay toobadda ilaahay way furan tahay subxaanahu wa tacaala in badanna ilaahay addoommadiisa waa u naadinayaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dembi kastoo kaa dhacay xumaan kastoo kaa dhacday ilaahay naxariistiisa ha ka quusanin dembi dhammaantiis ilaahay waa dhaafaa tub ilaa rabbik ilaahay u toobadkeen macaasidii iyo xumaantii aad caadaysatay ilaahay oga laabo hadday tahay mid ku saabsan dhaqaalaha iyo maalka iyo xumaan inaad kasab xaaraam ah ilaahay oga toobadkeen ilaahay waa kaa aqbalaya hadday tahay mid dil ku saabsan muslim aad dishay ilaahay oga toobadkeen ilaahay waa kaa aqbalaya subxaanahu wa tacaala hadday tahay kadib iyo khiyaano kale dhammaan ilaahay oga toobadkeen dembi kasta ilaahay waa dhaafaa gaalnimo iyo shirki baa ugu weyn ayadana qofkii ka soo laabta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u dhaafaya watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun falaaxa iyo liimaanta ilaahay wuxuu ku xiray qofku inuu yahay mid ilaahay u laabto markuu yahay qofku taa'ib ila allah qof ilaahay u laabanaya oo mar walba ilaahay u toobad keenaya uu yahay si dhab ah laa shakka qofkaas inuu liibaanayo badanaa qof fiicnaa oo wanaag badnaa laakiin waxa loogu khatimay
أي خاتمحون أي تهي آخر كي جبا أقدم بيس إلهي عاسيي خير كينا كتجي مركي هورنا وناقول جو يقاني بدنا مد حمان يفسقي مدلج هرهيي لكن إلهي سبحانه وتعالى عناية من الله إلهي حفظك سي إلى لنتي سوها علي وجبدي مالمي أقدم بيجي نلشي سا إلهي الله بتو إلهي أطوبت كاني أو جاري مرتبدي أي جارين الأبرار الصالحون والمخلصون كوي باريال كاها يكوي مخلصين تاها مركبة كدبت تجي توبت كان إلهي كأقبلي وآخر حياته إلهي سبحانه وتعالى مقام سر وكسيي آد بأفر بدنت ذاتك توبت كاني وحمان تكسر الله بتاع آد بأفر بديهين كوح وناق لقوا يقاني ودب ضوء قريانا وشرا أيهنا نسأل الله السلامة والعافية قفك بشان يضع إلهي سبحانه وتعالى وسوق جارسية خير كان يا نفحات كان يا إنتاس خير كوسو شري وإنه كوجب يا خير ما أنت يا جماعة لقنا يابا إني تاي مالك كبير بشو قدام بيس ساعد باكوتشرته قالي ساعد سنة وقلي كضمبه إلى قرح ذو أي كنا على كرادي وهي عصر كضمبه كرادي ساعد داس أضون وافقا متشرو إلهي وحويدي سنة يا وحاسي واحد دوران هادين إلا إلهي وأقبله ساعد داس يمحويان أديجي أو صائم أو صون كدعادي سو أي صائم كدعادي سو أي مستجابة هي هذا اسكوكا وافقان ونعمة من الله عظيمة ختام وناكسن يجب وناكسن وخيرك وكوكو دمادي وي نفط هذا الدعاء المها هذا الدعاء أهلك هذا الدعاء قرابة هذا الدعاء ضلك يضدك مسلمين تا أنت الدعاء صاحب هذا الدعاء إلهي ويديسو وح الله لي وح خير مد الدنيا مد آخرة وحبدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نبي عليه الصلاة والسلام دعاء سبدين شري محايل الدنيا آخرة وحي كتكتي مله وحول بأو خير والدون كسوغان يوح كست أو خير أو آخرة كسوغان انت بوحويان دعاء سوي شملس وعن النبي عليه الصلاة والسلام أويري قف يصدح شاري لهذا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار صدح شاري قف كل عليا شنادو واحد ترى هذا إله سوقلي قف كان يكوي ديي نار ترى واحد ترى إله يقفقه قف كان مجان قلي كل علي أو بتصو وحين بدن بديسا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على طاعتك دعاء إلى أبدي نبي عليه الصلاة والسلام وآد بوقوع العلج وحون الشيء قلوبته إنه قد قدوم يسوع أو حوية إلهي صدون وقد قدينا هيو إلهي إنه استقامة يتوصناشها يحقق قصقه إن بدن إلهي ويديسو نية خالصة كويديسو قلبي حاضرة ووحق وشيء يحسوسا إلهي كبري وحكهر مريسا إلهي حمدك يساكم هاديسي وحكهر مريسا صلي النبي وحأوشي ستا قبلة وحق عمها كرتاك قلبك صح حاضري إلهي بري سبحانه وتعالى صائم باطهي ساعد إجابتنا ما أنت جمعة كشرتا لعل الله إن تهمالك وجودا بيجي وإلهي عذابك وكاحريه أديك وارد كابه أنت تعشها إلهي نوافج كلمتك لو مهم كوحويان زكاة الفطر ذا وفرض واجب وقت جيدنا ولا تشوقه اسكب اللو بحنت هذا وقت فضلك بدن هبينك عيد أي تهي إلى صلاة اللي هذا هيو هذا كؤات سنكرت كؤاتسو هذا تكبر إنه كوفو دان ويدو وحكود داشا إنه اسكب بحيث اللي قبل اللعبة حلا مانتا يسكبح وحلا بحنا هيو وراشك اللعونة هيو نوع دحدحات كوي كان لي تنا بحين متك أوجو لسنة عد كوجو مكلفين وحاب بحسا صدح كيلو اسكبح محايا الخلاف باكوتشرة لبا كيلو يبر لبا كيلو طوب بقول يكون 5 جرام لبا كيلو 4 جرام 6 كيلو انت أهل العلم وسوق جوريين ساعة نبي عليه الصلاة والسلام وكب حنشري كيلو أهان مركز اللي يراهدوا محو دقمع 6 كيلو هذا بحسد واحد ولا صعداء متشران وحي كزيادة هنا صدق يكون قنص واحد يبقى تعمله ضدك أسيني سنها هذا ضد مساكين وحا أسيني سي مساكين تاسي ما حددنا زكاة فدري هذا أردن يا صاحب هذا قف مسكين واسين كرتا لكن مساكين تكلجا جارسي
una roonow oo hal miskiin iyo qoys keli ah ha siinin wax 2 kiilo 3 kiilo 5 kiilo ha siine wax fiican sii oo dhowr bilood ay ku moodi karaan si masaakiinta sadaqada bixi waqtigeedii baa la joogaa fadligeedii baa socda fadli badan bay leedahay bixi midii aynu iclaaminay oo masaajidka lagu soo dhajiyay dadkii masaakiinta ahaa waxa ku soo ziyaada kuwa kale aad ayaguna u dhibaataysan wixii aad ku tuuri kartay akoonka ku tuur kuwii qaraabo aad garanaysay waxa siin kartay si la'alla allah ilaahay inuu khitaamka wanaagsan iyo sadaqadaas iyo zakaatul fitridaas iyo ducadaas iyo siyaamka isku ka waafaqay ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kugu siiyo khayr adduunyo mid aakhiro oo noloshaada oo dhan wax ka bedela awlaadaada u ducee ducadana waxaad ugu dartaa tarbiyo wanaagsan inaad kula dadaashid ha u gadin ilmahaaga dharka waxa weeyaan xun hadday tahay gabdhaha maryaha liita oo waxa weeyaan khafiifka ah oo halka intay uga dhagaan labada lugood markay socdaan ay isleedahay gabadhaani waa dabran tahay waxa noocaas oo qashinka ah gabdhahaaga ha u gadin ilaahay uga baq ha u gadin lacagna ha ka bixinin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ku siiyo xalaasha ah waxaad ku gadaa wax ilaahay raali ka yahay wiilashaada hadday doonayaan inay ku ciidaan saraawiisha magaalada taala oo karkaran qaarkoodna ay jilbaha korkooda ka dilaacsan yihiin oo salaad aan gelin oo cawra in la asturto aan gelin oo waxay gashay aan la arag oo tashabbuh bil kufaar ah wiilashaada ha u gadin ilaahay uga cabsa subhanahu wa ta'ala hadday doonayaan inay madaxa soo xiirtaan oo dhowr ay samaystaan dhaqankaagi ma aha dhaqankii muslimiintana ma aha meel xun bay u socdaan ha ku taageerin hana ugu kaalmayn watacaawanu cala albirri wattaqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan ilaahay wuxuu leeyahay dembi iyo xadgudub ha iskugu kaalmaynina iska ilaaliya war wanaagga iyo taqwada iyo khayrka isku kaalmaysta laakiin macaasida iyo dembiga ha isku kaalmaysanina waa ceeb waana xishood darro aabba dhan oo ilmihiisa intaas oo wiil guriga ay joogaan oo midi dhowr leeyahay oo mid dabagaab uu qabo oo mid marakar karan uu qabo oo uu saa u fiirinahayo oo una waxba ka qabanahayn waa mas'uuliyad uu dayacay oo waxa weeyaan ilaahay hortiisana aakhira la weydiinayo ilmahaasi waxay u baahan yihiin degdeg in looga gaaro dhalinyarada noocaas ah hadday joogaan masaajidka kuwa maanta tintooda ayna isku aadanayn waan u ducaynaynaa ilaahay inuu soo hanuuniyo ayaguna ha ka faa'iideysteen ducada inay qaataan oo maantaba laga bilaabo madaxooda ay soo simaan oo si sax ah ay ku ciidaan maalinka ciidda farxadda ah oo muslimiinta ah dhar fiican ay soo qaataan wa in loogu duceeyaa ilmaha hidaayo ilaahay inuu soo hanuuniyo ficilna la yimaadaan oo lagu didaalaa in la xakameeyo kii la celi waayo meelaha dhaqan celinta ah oo khayrka iyo wanaagga uu ka socdo oo cilmiga loogu akhrinayo oo kutubaha loogu akhrinayo oo salaatuleylka loo soo kicinayo oo uunan ka bixi karin waa inaad halka dhaqaale ku bixisaa oo magaalada xamar intaas oo meelood baa ka furan waa inaad geysaa oo aadan ku fiirsanin wiilkaagii oo haadaan ku socda oo lumahaya oo waxa weeyaan dambi iyo xumaan ku sii socda ha ku fiirsanin haddaad tahay aabba fiican oo mustaqbal fiican ka raba ilmahaasi waxay inkaga baahan yihiin badbaado degdeg ah ayay nooga baahan yihiin kuwa dibadda ka imaanaya kadaalika sidoo kale aabbayaalka keenaya markay dalka keenaan waa inay khayrka iyo wanaagga ku tawjiihiyaan dumarka waxaa sunnada ka mida maalinta ciidda inay dumarku soo baxaan salaadana ay yimaadaan xataa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray gabadha aan daahirka ahayn inay soo baxdo oo aan laga soo tegin oo ay timaado meesha muslimiintu iskugu imaanayaan wuxuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu amray in laga dheereeyo salaada aynan tukanin laakiin maxay u imaanayaan wayashhadna alkhayra wa da'wata almuslimiin waxay soo xaadirayaan khayrka iyo baryaha muslimiintu ilaahay baryayaan ayay ka soo qayb galayaan oo ay soo xaadirayaan hatta hadaynan daahir ahayn sunnadu waxa weeyaan inay timaado meesha muslimiintu ku ducaysanayaan oo ilaahay ku baryayaan subhanahu wa ta'ala salaada markaasna ay ka dheeraato oo ayna markay soo baxayaan udgoon ma soo marsan karaan ayadoo ay soo qurxiso quruxdeedu banaanka u soo baxayso lama ogola ilaahay wuxuu leeyahay walaa yubdiina ziinatahun haweenka mu'minaadka ah yaynan muujinin quruxdooda yaynan muujinin inay is soo cadayso udgoon soo marsatana lama ogola waa inay soo xijaabataa una timaada khayrka inay ka soo qayb gasho kadalika ragga waxa u sunna ah ayagu inay soo qaataan dharkooda ugu qurxoon uguna fiican udgoon waxay heli karaan ay soo marsadaan
marka imaanayaan sunnadu waxa weeyaan inay ku yimaadaan maashiyan asagoo lugaynaya inuu yimaado oo aan gaadiid saarnayn hadday u suurtoobayso weey haddii kale wax dhibaato mal uu soo lugeeyo hadhowta markuu laabanayaan dariiq kale uu ku laabto inta uu socdo ama masjidka uu joogo ama guriga uu joogo takbiirta inuu qaado Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd iyo sifaadka kale oo ay leedahay takbiirta la qaadayo inuu codka kor u qaadaan raggu waa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam takbiirta in kor loo qaado waa sunnada ka mid tahay waa in lagu dadaalaa walaalayaal khayrka maalinkaasna waxa weeyaan muslimiinta masaakiinta ah waa in laga farxiyaa zakaatul fitridu waa tuhratan lisaa'im min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil-masaakiin kuwa masaakiinta ah quud bay u tahay qofkii soomanaana waxay u tahay soonkiisa wixii ka dhacay ayay u taamiyeelaysaa oo waxa weeyaan khalalkii gaaray ayay u kabaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baryihiisana aan badinno ilaahay khayrka inuu waafajiyo masjidka saxaaba salaada ciidda hal saac iyo bar laga yaabaa inay daqiiqada ku darsamaan haddii dadku ay soo daahaan xoogaa haddii laakiin uu hal saac iyo bar marka la gaaro meel walba ay buuxdo horaa laga gelaya waa la tukanaya qaybta ugu korayso bannaanka ah waxa weeyaan raggu waa ku tukanahayaan wixii guduhu ay ka buuxsamaan laakiin qaybta dhexda oo dabaqa ah dumarka ayaa ku tukanahaya wadadii meesha ka soo gali jireen ayay dumarku ka soo galayaan ilmaha yar yarka qofkii soo kaxeeya ha ku didaal inuu gacanta ku hayo ha ku didaalo inaysan masaajidka kharibin ha ku didaalo laga yaabo inay xilli roob noqoto qofku ha ku didaalo inuu soo qaato wuxuu ku mobilkiisa ku rito bac iyo wax la mid ah inuu ku didaalo soo qaato oo waxa weeyaan laga yaabo inuu banaanka ku tukado ama kor uu ku tukado mobiladii wixii wata ay ka qoyaan ha soo qaato bac iyo waxa soo qaato waxa sunnah markaa soo baxaysid subaxdii inaad timir soo cuntid ayaa sunnah waa ciida kale ayada waxba lama cuno maadaama qofku maalmihii ka horeeyay una soomanayn waxa weeyaan soon uusan ahayn ku sugnayn waajib ah waxa weeyaan waxba lama cunahayo asagoo afkiisa qabu baxahaya markuu soo tukadana udxiyadu qalahaya laakiin ciidan waxa weeyaan qofku markuu soo baxahayo inuu soo cuno timir waliba timirtana wuxuu u cunahayaa tirsi isdheer buu soo cunahaya 3 to 5 to 7 9 tirsi isdheer buu soo cunahaya qofku asagoo waxa soo cunay ayuu soo baxahaya إلهنا هنا وافجي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين